السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا قدوين ميديا ما انت واحد يدين ودا مقالة مقدشو عردل يبد بهاونيسا دكت بان وحكسو دقن اربور بان وحكسو دقن قاري السعودة دول كان مجرو معي كولتهاي ساس ugu haawanaysa magaalada Muqdisho ma colaad baa ka jirta maya colaad kama jirto alxamdulillah waa nabad saaki dadku nabad bay ku soo kaceen laakiin ciriiri baa la geliyay ganacsatadiyo milaayiin dollar khasaaraysa sababtuna waa maxay waa soo dhaweyntii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geyle Soomaalinimadii sinjiga ayaan wadaagnaa Djibouti waa walaalahayn waa garbaheena midig iyo bidix ayaan suna waa iskaabnaa laba iskaabto kaalin wada gasha waligoodna walaalo aha haddana ahaana doonaan laakiin waxyeelada ganacsiga soo gaaraya Ismaaciil sabab uma aha imaashihiisu dawlad baa casuumtay oo ka helay casuumaad u yimiday ama walaalihii buu soo booqanay laakiin cidda maamulka meesha u hayso ayaa laga rabay inay ka fikiraan waa ku salaam Ismaaciilow صدق صادق جونو لكن waxay ka su'aala reer kole ma ku jiraan kuwa laga xiraayo jidadka intaasna kaftan ay ga ahaato waxaan rajaynaa Ismaaciil inuu nabad ku gaaray madaxtooyada uu nabadna ku guriga noqon doono insha Allah taala hadana shacabka reer Muqdisho ganacsiga uu xayirmay مسكينكي بجاجلها او بجاجتا ku shaqaysanaya inta yaro alyomka oo afka iyo caloosh inta u dhaxaysay iyo shidaalkiisa aan ka badnayn waxa la yiri joog dhaqaaqin digtoono halkaaga ku ah gurigaaga islaanti uurka leh oo dhan leeyahay isbitaal caafimaad aad leed gaadiid qaadi kara ma jira la yiri wixii oo dhan saaki waa kab bir iyo dhul oo xiran wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka iyo badda waxa kaliya fasaxday wixii oo ambulance ah oo diyaarad ambulance ah oo lagu qaadayo qof xanuunsan ama emergency ah oo dibadda loogu dhoofinayo way fasaxday waxay kale fasaxday wixii wufuud ah ay soo degay wixii inta ka dambeey ama ganacsi leh ama qof caadi iskiisa u dhoofaya leh ama qof soo degayo tikidkii mar hore bookintay nooc baa laga horgeeyay maya joogso magaalada Muqdisho way haawanaysaa waad aragtaa wadooyinka waa eber cidla bisad ma socoto bisad ma socoto waxa la yaab la magaalada Muqdisho looda iyo carbeedku way socon jireen xataa iyaga iyo xataa ma aqaano ma la aruuri Ismaaciilow nabad Allah ku yeelo walaalkeen baa tahay dawladnimada maanta aan ku taamayno dadkii dib u soo abaabulay baa tahay 99kii 2000 dawladii carta lagu soo aasaasay way hana qaadi waysay laakiin waan kaaga abaal haynaa Djibouti waa walaalaheen waa gacanteena garabkeena midige laakiin siyaasiyiinteeni ayaa saaka halkaana dhigay Ismaaciil waa qof saacada yar inta la xiro uu socdo way yeeli kareen laakiin in loo xiro hawadii dhulkii cirkii badii intaba in loo xiro saaki waa ayaan daro oo dadkii deegaankii magaalada Muqdisho dadka kaliya dawladda isha kaliya ku dhaqaaqday canshuurtooda in saaki la khasaariyo waa arrin nasiib darra waxay ahayd Ismaaciil waa nin mansab iyo maamuus naga mudan waa nin walaalkeena ixtiraam aan u hayno laakiin waxay ahayd saacada uu soo degay in amaankiisa la sugo la geeyo madaxtooyo halka lagu maamuso milge iyo sharaf lagu maamuso wuu mudan yahay laakiin in la xiro meel walba dadka cunaha la qabto bajaajlo shaqaysan meeyay saaki aday ku taala ilmaha waday qadaayay hadaad u gaajo u dhimanaysa hadaad dab shidanaysa hadii kalaba ganacsadii yaraa tabakaayada yaraa u furneen iyo kii weyna bakhaar ku furnaa no inta ba cross la wada saaro wax nasiib darra waa wax dawladihii soo jiray tii Cabdullaahi Yuusuf ka soo bilaw ilaa maanta oo Xasan Sheekh uu madaxweyne ka yahay waa wax ay caadaysteen
dadka maamulka u ah gobolka banaadir waa caado ay caadaysteen waxaana u meeriya wasaaradda arrimaha gudaha fiqiyow wasiirka arrimaha gudaha mastar fiqi dadku ganacsatada maanta khasaarihii gaari magdhow ma siinaysaa gudoomiyaha gobolka banaadir magdhow ma siinaysaa ganacsatadii iyo bajaajlihii saaki bal waxay dabka ku shitaan ma siinaysaa cid aad magdhow siinaysaana ma jirto walaalayaalow arrinkan arrin dhaama la imaada arrinkan khasaaraha maalin walba joogtada haddii maanta oo khawaarijta soo galaan dhul qarxiyaan ganacsiga ku baaba'ay magdhow ma siinaysaan ammaankiina adinkaa qaato annaga mas-uulka ah baa tirahay maalinkii wafdi soo degaayana wax ganacsi shaqaynaayo iyo wax oo qof oo gaadiid shaqaynaayo ma jirto oo khasaaray taagan yihiin magdhow ma siinaysaan oo maanta balnimayo khasaarahan idiin soo gaaray intaan ku kabta ma lihidiin siyaasaddaa siyaasad dhaanto inaad la imaataan ayaa idinka rajaynaynaa haddaad tihiin wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga iyo maamulka gobolka banaadir siyaasad fadhida ee gobolka banaadir aayihiisa looga shaqaynayo la imaada istiraatiijiyad cusub inaad la imaataan mid waa idinku ixtiraamaynaa oo meel oo ganacsi oo shacab lahaa haddii la weeraro ciidanka xabadda iyo feeraha u dhigaayo waa ciidanka amniga ee hoostaga wasaaradda amniga hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha hoostaga wasaaradda gaashaandhigga hoostaga gobolka banaadir waa idinkaga mahad celinaynaa inay khawaarijta meel walba ay gasho aad ka daba gashaan oo tirtirtaan oo amniga dib u soo celisaan laakiin intaa wax ka dheer baan idinka sugayno canshuurta gobolka banaadir ka soo baxda meel kale Soomaali ka imaata ma jirto meel kale Soomaali ay ka imaata ma jirto airportka Muqdisho maalinkii 40 milyan baa ka soo xarato iyo dekada magaalada Muqdisho iyo biriga waaxda biriga canshuuraha biriga 40 milyan baa soo xarota 40 milyan waxaa la rabay inaad dadkii dib u gelisaan meeshii magdhow u baahanaad siisaan maanta oo kale waxaa la rabay inaad dadku ka war haysaan ilaan adinkaa cunihii qabtee siyaasad degan istiraatiijiyad cusub inaad la imaataan sidaas si la mid ahna waxaan idinku garab taaganahay mar walba la dagaalanka khawaarijta ilaahay dalkan nabad ha ka dhigo dalkan ilaahay nabad ha ka dhigo laakiin calaamad su'aal baa noo saaran wasaaradda amniga iyo gobolka banaadir markuu wafdi soo degaayo dadkeen cunaha la qabto istiraatiijiyad aan ahayn inaad la imaataan ayaan rajaynayna almeeno saacado alla xiro kadib dadku ha shaqaystaan markuu baxayana saacadaha la xiro laakiin maanta idil cirkaa xirnaanayo oo dhulkaa xirnaanayo oo baddaa xirnaanayso taasi arrin fiican maahane istiraatiijiyad ka duwan la imaada walaalayaalow istiraatiijiyad ka duwan inaad la imaataan ayaan rajaynaynaa amni buuxa iyo nabad iyo kala dambeyn ayaan u rajaynaynaa gobolka banaadir een cidna lagu dulmin wafdigii soo dega si nabad ah uu ku tagi karo madaxtooyada iyo meel alla meeshuu rabo hadday yihiin safiiro hadday yihiin madax u socota madaxdeena kale madaxtooye ku jiro madaxweynaha hadda jira iyo midka imaan doona iyo midka kale oo kasii dambeyn doona si nabad ah wufuudda u socota inay ku tagi karaan iyadoon meelna la xirin cidna la dhibaateyn cidna la carqaladayn cidna dhaqaala xuma lagu ridin oo cunaha la qabanin ayagoo si nabad ah inay ku tagaan ayaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaah taasna iskama imaanayso waxii cirka ka soo degaya ma noqonayse dad baa intay fadhiistaan ay ka shaqeeyaan waana rajaynaa shaqadeeda inaad ku guda jirtaan waana rajaynaa wasaaradda amniga inay shaqadeeda ku guda jirto gobolka banaadirna inuu weli shaxdii iyo istiraatiijiyadii arrinkaasi looga baaraandegi lahaa inay ku guda jiraan waa rajaynaa sidaas si lamid ah wasaaradda arrimaha gudaha in iyadana ay ku guda jirto waa rajaynaa tamaaliyadda ee canshuuraha uruursata ayana waxaan rajaynaa inay ka shaqayso bal canshuurihi aruurisa gobolka banaadir waxun inay dib ugu celiso meelayaga qaar mashaariic way ka qabteen laakiin roob markuu daa magaalada Muqdisho balliyaa meelaha qaar noqdaan waxaa laga rabaa maamulka gobolka banaadir arrinkaas istiraatiijiyad inuu ka keeno dadku ku nool yahay oo faleenbada u uu ku nool yahay in wafdi soo degay loo cuna qabateeyo
ma shaqaysan kartaan la yidhaahdo istiraatiijiyad ka duwan inuu la yimaadaan rajaynayna wufuudda inay si nabad ku tagto madaxtooyada ilaa eraboorka si nabada inay ku tagaan waa jecelnahay sidaas si lamid ahna waxaan jecelnahay dadkeenu shaqaysanaya albaabada u furan subaxii soo kaleeya fatax iyo rasaq dhahayo in yar oo soo gasha maalinkaasi inay helaan si adiguna canshuur u hesho gobolka banaadir uu isla lugaha isugu taago oo wax qabad la yimaado ilaa waxa aad qabanayso canshuurta aad qaadee meel kale wax kaagama imaanayaane waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala gobolka banaadir oo nabdoon guud ahaan geyiga soomaaliyeed oo nabdoon soomaali midaysan oo saa isu haysato inaan arki doonno insha allahu tacaala wafdi baa yimid aan loo xiri doonin meelna waxbaa qarxay aan la maqli doonin khawaarij baa jirta iyo fatuug baa jira iyo soomaali baa is haysata inay dhammaan doonto soomaaliyo barwaaqo ah nabdoon adduunka iyo aasaagooda la tartamaa weliba tartamid maane ka horeeya ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahay baan ka rajaynaynaa intaasaan kusoo kooba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu